jasiirad dadkeedu moog yihiin wax dunida ka dhacaya. jasiiradan lama taabtaanka waxaa loo yaqaanaa North Sentinel Island, waxayna ka mid tahay jasiiradaha Andaman iyo Nicobar oo dhaca gacanka Bengal. waxaa dega jasiiradan hal qabiil oo kaliya, waxayna ku nool yihiin nolosha ay dadka ku noolaayeen kumanaan sano ka hor, waxna kalama socdaan xaaladda dunida ee maanta. jiritaanka jasiiradan ayaa lagu qiyaasay 60,000 oo sano, lamana yaqaano tirada dadka ee ku nool jasiiradan. waxaa lagu qiyaasay 40 ruux ilaa 500 oo ruux. ma jirto cid taqaano habdhaqankooda, waxayna leeyihiin luqad iyo caadooyin aanan cidi aqoon. baaritaano iyo macluumaadyo la isku keenay oo la isku soo ururiyay ayaa sheegaya in dadkani ay cunadoodu tahay kalluunka iyo miraha laga helo jasiiradan. jasiiradan waxaa gacanta ku haya dowladda Hindiya, laakiin dadkan ma oga xitaa inay jirto wax Hindiya la yiraahdo. 2006 ayay dowladda Hindiya samaysay isku day ay wax badan kaga ogaanayso jasiiradan, laakiin ugu dambeyn waa lagu guuldareystay. sababtuna waxay ahayd in dadka ku nool jasiiradani ay diideen galitaankeeda. ma danaynayaan cunooyinka iyo waxyaabaha la siinayo, xitaa ma ogola in la caawiyo xilliyada ay musiibooyinka ka dhacaan badaha. sanadii 2004 ayaa xeebaha Hindiya waxaa ku dhufatay duufaan aad u weyn, waxaana la isku dayay dadkan in la caawiyo oo raashin iyo dhar la siiyo, balse falaaro ayay kaga hor yimaadeen dadkii caawin rabay. sanadii 1896 ayaa xabsiyada Ingiriiska waxaa ka baxsaday shakhsi, maalmo kadibna meydkiisa ayaa laga helay xeebaha jasiiradan, isaga oo jirkiisa lagu muday falaaro aad u tiro badan. sidoo kale waxaa la sheegaa in sanadii 1974 ay tageen koox rabtay in ay filan documentary ah ka diyaariyaan jasiiradan, balse 2 ka mid ah ayay falaaro la dhaceen. dadka badanaaba waxa ay ku taliyaan in faraha laga qaado loona daayo deegaankooda iyo dhaqankooda. intaas ayaan kusoo koobiyaa mawduucani maanta. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkeena. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.